waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga wadani oo inta badan dalka dibadiisa nagaga maqnaa oo aynu aad iyo aad ugu baahnayn inuu yimaado waxyaalo badan naga xidhaayeen doorashadii Faysal ka cawday oo dhammaanteen lagu taageero dalku u baahan yahay inta yadiisii joogtay heshiis baan ku ahayn doorashada in la qabto bisha 16keeda waxa naga maqnaa Cabdiraxmaan insha Allah isaguna nagu raaci maalinta mar hadduu yimid doorashada way inoo qabsoomi doontaa hawl kala taa kama taalo arrinta ceerigaabo nabad baa ka jirta warwar kama qabna inay dhamaanayso nabad ku dhamaanayso dadka halka ay isugu tagay kuwa sii joogay kuwa u tagay kuwa dibad jooga dhammaanteen waxaynu heshiis ku nahay inay arrintaasi nabad ku dhamaato oo islaax dhexdeena ku dhamaato oo waxba inaga duulduulin wixii sharciga sidii loo waafajinayaa la isweydiinayaa mooyaane maanta halka khilaaf ka taagan oo la isku diidan yahay dawlad iyo odayaal iyo dhalinyarada inay carootay midna ma jirto qodobo yar sharciya la xalinayaa si sharciga loo waafin lahaa taana ka warwar la'aada nabad bay soo dhamaanaysaa dalkuna waa nabad codsigii labada baabuurka kii koowaad maadna qaadatay ka labaadii ka saddexaadna labada gudoomiye xisbi oo leh oo hadda la siinay xaqna way u leeyihiin in lagu maamuuso waayo waa raggii tartanka galay ee qaranka intaas oo codka laga taagan waa inagu ceeb inay gaari yaro qaran xawtaan mar walba gaariga wanaagsan sanad walba way leeyihiin gaariga wanaagsan waa la xeeb taana taagsan soo gabaya mar labaad waa u ducaynaynaa waa hambalyeerina dhammaan ganacsadeena iyo kamariyeesheena in alla barakeeyo tan maanta aynu nimada hambalyeey ducada deesa xaaju sheegayna anagu كل كاستمر سوين بيدور دون قطعي وين كيش يدور هذا أنا ورا قرقرتين أسأل قرقرتين سحاج دي الله يرحمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته